بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. marka hore waad salaamantiin dhamaantiinba waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. waxa aniga iyo inaan kala walaalkeen oo la yiraahdo Axmed Muuse nala soo wakiishay inaan idin guddoonsiino daatiin gudidii wadada Baligubadle $4,430 lacag qadarkeedu yahay Swedish na u dhiganta $40,140 ayaan guddoonsiino caawadii biraado oo kaashana ku hayo waxa kale oo halkan inta raacin lahaa fariin aan u dirayo dhamaan intii u gaadho dhambalkaasi qulbo joog iyo gudo joogba inay ka soo qayb qaataan sadaqada jaariga ah oo ah wax aad ugu muhiim ah bulshadeena iyo deegaankeenaba haday noqoto xaq dhaqan dhaqaale xaq isu furnaanta bulshada hadii biraado marka waxaan ku bogaadinayaa cid walba aan ku boorinayaa cid walba inay ka soo qayb gasho wax ka geysato jaaliyada reer Sweden caawan halkan u fadhino inaan ka gudoono tabarucaadka ay ugu tala galeen wadada iyo gacmaha horena ku lahaa wadada Baligubadle Hargeysa aad iyo aad baan u hambalyeynaa Idris Sheekh Maxamuud iyo Axmed Muuse oo loo soo wakiishay inay lacagta qadarkeedu yahay $4,430 ay ku wareejiyaan wadada Baligubadle gudideeda waa sadaqa jaariya waxaan leenahay halka ka soo saarteen bedel khayr qaba Allah idin siiyo ay ku bedelo waxa farxad weyn ah inaan caawa anigu Hargeysa jooga Somaliland lana jooga gudidii beesha wadada aan caawa halkan aanu ka gudoono walaalkeen Idris Sheekh Maxamuud deeqdii qaaliga ahayd ee aad uga soo dhiibteen dalka Sweden wadadu maanta waxay maraysaa waxay Soomaalidu tiraahdaa hilibkaas waa hilibkii neefkaba loo dilay wadadan wixii loo sameeyay waxay ahayd dooxa weyn habaas weyn ee baabuurtu gali jirtay ee ay habeenno ku dhixi jirtay ee dhibaatadan wadadan meeshii ugu dhibaatada badnayd ay maanta wadadu maraysaa waxa nasiib u helay dadka maanta wadadan tabaruc soo ururiyay ee nasiib u helaan halkii ugu darnayd in tabarucoodu soo gaaray oo halkii ugu ajarka badnayd in tabarucoodu soo gaaray halkii ugu dhibaatada badnayd ee ugu baahida weynayd in tabarucoodu soo gaaray intii sokee magaalada u dhaweyd iska ciyaar bay ahayd maanta halkii ugu darayd bay maraysaa halkii wadadaba loo sameeyay ayay maraysaa waxaanu ilaahay idinka baryaynaa dadkiinii horena wax ugu soo ururiyay wadada maantana $40,040 soo dhiibay in halkaad ka soo saartay ilaahay khayr idinku bedelo guud ahaan waxa aan salaamayaa gudida iyo jaaliyada iyo runtii dadka tabaruca soo bixiyay ee reer Sweden jazakumullahu khayran runtii haddana anagu abaar ku jirnay idinkuna waqti adag ba ku jirtaan waqti aad u adag ba maanta ay marayaan dadka dibadda jooga haday xagga dhaqaalaha tahay iyo haday xagga hawlaha kala tahayba waa idin la dareemayna haddana iyadoo hawshu sidaas tahay ba runtii soo goyseen intii aad iska jiri karayseen gacan hore waa la haydeen gacmo maantana waa bixiseen gacmo dambana waa bixin doontaan oo ku kala tagi meena insha Allah intii horena miisaanka xasanaadka Allah idinku daro intana miisaanka xasanaadka Allah idinku daro runtii cidii ay warwaraysan haday ubadka tahay iyo hadii nafihiina tahay iyo hadii ay maalkiina ay tahay intaba ilaahay haydu ku salaamad yeelo oo Allah idinku badbaadiyo waxaad ifkana wax ku taransataan aakhirana ilaahay wax idinku siyaadiyo Allah idinka dhigo waxa weeye maanta $500 ama $1,000 ee runtiina loo soo diray wadada loo soo diraa anaga wax weyn buu taraya imika 3 kilomitir ee la bixinayo qolada hay'adda aan la hoos cararnay waxa weeye waxaan laga sugayaa lacag dhan ilaa $200,000 baan laga sugayaa oo waa inaan anagu saarana daamurka iyo muxuu ahaa iyo shaygan anagu saaranayna oo ballanka qaadnay iyaguna waxay noo hagaajinayaan intii hoose ay noo hagaajinayaan lacagta waanu kafaalo qaadno waanu haynaa waan nidhi runtii markaan nidhi waanu haynaa waxaynu ku xisaabtanay unta Ilaahay subhanahu wa ta'ala
ilaahay ka soo kana jeebadaheena taa walaaladeen ruux walba gacantiisa ku jirta taayada ku jirta eetiina ku jirta jeebadaheenaasaynu ku xisaabtanay runtii lacag fara badan oo aad u wanaagsan baa la bixiyey 8 kilomitir baa inoo dhamaaday 8 baynu imika dhigaynaa waa 16 kilomitir oo wadooyinka ugu wanaagsan haddaanay ahayn ta ugu wanaagsanba waa wadada aynu odhan karno Soomaaliland wadooyinka ugu fiican ee imika iyada laga bartay ee imika la dhigo waa ta ugu horeysa runtii alxamdulillaah ilaahay bayna siiyey saasana inoogu dhamaanaysaa oo saasaynu ku wadeena marka waa ku mahadsantihiin waan idin ducaynaynaa dadkii hore u soo bixiyay waa u ducaynaynaa jaaliyadaha iyaga runtii dibadda ku maqan oo dhan aad baa ugu ducaynaynaa ummadda reer Soomaaliland nagala qayb qaadatayna hiiliyahooga runtii iyaguna nooga qayb qaatay wax soo bixiyay tabarucaadka bixiyay iyagana waxaan leenahay jazaakumullahu khayran wadada waan wada leenahay baabuurtiina maraysa kuwana maraya hal deegaan kaliya ta baabuurtooda runtii ma marayaan cid waliba way maraysaa ummadda ilaahay oo dhan baa loo sameeyay marka cid waliba inay nagala qayb qaadatana aad baan u soo dhaweynaynaa guud ahaan waxaan ugu ducaynaynaa jaaliyada lacagta naloo dhiibay insha Allah imika naloo dhiibay ayaan aad ugu ducaynaynaa miisaanka xasanaadka Allah idinku daro dambigiina Allah ku dhaafo cidii aw niyooteena Allah idin aqbalo hadii cid idinka xanuunsanaysana Allah idin shaafiyo ubadkana Allah idin barakeeyo iyo shaqooyinkiina iyo hawlihiina marxaladan aad ka u adagna Allah inaga saaro